Barcelona waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Sevilla. Kulankan waxa uu soo gali doonaa 5 saac oo habeenimo xilliga Soomaaliya. Waa Superkaabaha dalka Spain waxaa loogu talagalay koobkan kooxda qaaday horyaalka iyo kooxda ku guuleysatay Copa del Rey. maadaama labada koob ay Barcelona isla qaaday waxaa loo fiirin doonaa Barcelona yaa la ciyaaray finaalka koobkaasi waa Sevilla Copa del Rey. markale Sevilla ay wajihi doonaan kooxda Blaugrana magaalada Morocco ee Tanger ayaa lagu ciyaari doonaa finaalka Superkaabaha Spain ama Spanish Super Cup. Barcelona ciyaartooydeeda muhiimka sida Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho diyaar ay noqdeen kulamadii ugu dambeeyay ee tababarkii ugu dambeeyay oo ay ka soo muuqdeen. Saxiixoodii cusub ee Arturo Vidal ayaa ciyaartan dhaawac ku seegi doona. Sidaa darteed labada kooxood waxay rajeynayaan in bandhig fiican kulankan ay sameeyaan maadaama uu bilow u noqon karo horyaalka Spain ee La Liga. Sevilla ayaa Barcelona la ciyaaraysa labadii sano ee ugu dambeysay tartankan. Blaugrana ayaa badisay 8 kamid ah 9 kulan oo Sevilla la ciyaartay ama kooxaha Andalus ka yimaada. Copa del Rey waxaa la xasuustaa finaalkii wacdaraha ee sanadkii la soo dhaafay ee 5 gool eberka ahaa. Blaugrana ugu yaraan 2 ama 3 ay ka dhalinaysay Sevilla kulamadii isargooda ee ugu dambeeyay. Sidaa darteed Messi, Suarez, Coutinho, Dembele, Busquets, Rakitic dhamaantood waxaa la rajeynayaa inay kulankan ka soo muuqdaan. Tababar Ernesto Valverde tijaabo adag ayuu markale gali doonaa maadaama xil ciyaareedkiisii labaad ee Barcelona u bilaabanaya. waad ku mahadsan tahay daawashada Qaraaxa Tube. fadlan subscribe like saar una share garay asxaabtaada si aan idin la wadaagno wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. mahadsanidin.